بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن أو وناكسن داوريال مeel kastoo aad joogtaan halkani waa kaaha bulshada maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno bulsho noocee ah ay u baahan yihiin inay noqdaan dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa dadka aradan akhlaaqda lehna dareen raran oo rogan kaas oo ku nool duni markaasi nooc kale ah dadka Soomaaliyeed inta badan waxaa loogu baahan yahay inay noqdaan dad leh ama fahmi kara waxa xun iyo waxa hagaagsan Soomaalidana taas way weysan yihiin oo inta badan waxaa arkaysaa dadka Soomaalida inay isku dhex yaaceen oo aysan kala fahmi karin waxa qaldan iyo waxa saxan dadka Soomaaliyeed markaa fiiriso meelo badan ayay ka dhibaataysan yihiin halbeegga lagu tilmaamo akhlaaqda ayaa waxa uu yahay dhowr qeybood sida ammaanada inaad tahay qof run sheeg ah inaad nacdo ama aad ahayn qof waxada sidoo kale inaad kala fahmi karto ama aad noqon karto qof cadaalad ah inta badan Soomaalida ah waxay sameeyaan inta badan qaarkood wax ku ah bilcagsi inta badan adduunyada marka laga hadlayo taariikhaha wax laga bartaa bulshooyinka ka horeeyay ama bulshooyinka taariikhaha fog leh ama la soo kulmay dhibaatooyin la mid ah midda haysata dalkeena Soomaaliya iyo dadkeenaba laakiin dadkeena Soomaalida ah ma ahan kuwa u diyaarsan inay ka faa'iideystaan oo ay dib u akhriyaan taariikhii hore ee dadyoogii la midka ahaa ama soo mar dhibaato inaga teen oo kale ah inay ka cashir qaataan oo ay ka faa'iidaan taasna waxaa sabab ah in qof kasta Soomaali ah loo sheego inuu yahay kan dadka ugu sareeya ugu saxsan uguna wanaagsan aysan jirin qof ka wanaagsan adduunka nolosha iyo maskaxda bulshada oo dhan waxaa lagu cabeeyay dhaqan iyo dareen galmo kaas oo tiray fahamka guud ee shacabka isla markaana waxyaabaha muhiimka ah aysan ku mashquulin oo ay ku mashquulaan waxyaabo kale oo aadan u ahayn markay dhacdo qof Soomaali ah oo fahmay dhibaatada haysta oo isku dayo inuu runta sheego waxaa ka hor imaada ama uu la kulmaa cagajugleyn cabsi gelin iyadoo bulshada dhamaanteed ka soo horjeesto taana waa mid ay soo mareen bulshooyinka adduunka oo wixii cusub ay dibsadaan kana hortagaan lana dagaalamaan xitaa waxaas haday yihiin wax wanaagsan oo ka shaqeynaya horumarka bulshada waana dabeecad inta badan aadanaha leeyahay in waxa ku cusub ay diidaan inay maqlaan ama ay fahmaan taana waxaa la sheegaa inay ka cabsi qabaan dhibaato inay waxaas ku yihiin dhaqankooda iyo noloshii hore u haysteen oo ay ka cabsi qabaan in la bedelo ama wax cusub halkaasi ay kala kulmaan oo ay ku wareeraan haddii la rabo bulsho inay wax iska bedesho waxaa muhiim ah inay dib isugu laabato oo ay is ogaato waxa ka qaldan isla markaana ay iska saxdo waxaasi sidoo kale waxaa loo baahan yahay bulshada inay dib u akhriso taariikhaheeda iyadoo qof kasta Soomaali ah markaa ama qofka Soomaaliga ah kan aqoonyahanka ah iyo kan jaahilka ah kan dabaalka iyo kan akhriga leh intaba ay mid kasta ku leeyahay Soomaalida sidaas ay ahaa jirtay iyagoo haysta hal fikir ama hal arin oo ka dhadhacsan taasoo ka dhigan in bulshada mid kasta kan jaahilka ah iyo kan doqonka ah iyo kan kale ay sameeyeen oo mid kasta uu aaminsan yahay inuu xalin karo mushkiladda dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya Soomaalida waxyaabaha kale caanka ku yihiin waxaa ka mid ah waxa luqadda psychology-ga ama cilmiga psychology lagu dhaho blame shifting oo la macno ah in cilad ama mas'uuliyad daro ama qalad adiga sameysay aad dusha u saarto cid kale aan joogin Soomaalida markasto aqoonyahan ama mid aqoonyahan ahayn marka dhageysto waxa maqlaysaa Soomaalida cadow ayaa ku soo duulay Soomaalida waa la isku diraa iyo waxyaabo kale sida ka warhayno Soomaalida markii dagaalada ay dagaalamayeen iyo wiligoodba markay dawladda ka hor ee qabaa'ilka ahaayeen way dagaalami jireen wax ku soo duulay ma jirin salahaan marka fiirno 1978 sidoo kale 1999 wixii ka dambeeyay waxyaabihii dhacay hal qof oo ajnabi ah kama uusan qayb qaadan 1999 dagaaladii sokeeye dalka Soomaaliya ka dhacay wayna ognahay cid isku haystay sidoo kale
dagaalo badan ayaa dhex mara soomaalida oo hogaamiye kooxeedya iska soo horjeedeen. dhammaanna waxaa dagaalamayay waxay ahayd dad soomaaliyeed oo markaasi mid kale soomaali ah ceersanaya ama dilaya ama dhacaya ama kufsanaya ama dhibaato kale u geysanaya. waxyaabaha loo baahan yahay in bulshada ay ku baraarugto ayaa ah in waaqaca ama waxa xaqiiqda ah hortaalo ay arkayaan, ay ogaadaan inay markaas xaqiiqdaasi xaqiiq tahay. laakiin waxyaabaha dadka sheegta aqoon-yahanada ayaa dadka waxay afka u geliyaan cadow aan jirin, iyagoo markaasi la dhihi karo in arrimahaasi ay ka dambeeyaan ama ay yihiin waxaa loo yaqaano conspiracy theory ama nadratu mu'amara ama dhagir maleega ama aragtida shirqoolka, taas oo ah in lagu sameeyo wax aan jirin ama cadow aan jirin cadow lagaaga dhigo. sidoo kale qof cadow kugu ahna lagaala dhigo inuu yahay qof saaxiibkaada ah. dadka soomaalida ah ayaa waxaa aada u jecel yihiin ama looga dhigay inay yihiin wax wanaagsan dadyooga carabta ama dowladaha carabta ah. waxaan arkaysaa qofka soomaaliga isagoo aada u ammaanaya carabta isla markaana dhaleeceynaya dadyooga reer galbeedka. laakiin xaqiiqda ayaa waxay tahay ma jiro dal kale jecel, laakiin waxyaabaha dalalka isku keena ayaa waxay yahay danays ama interest oo laba dal ka dhexeeya. waxaad arkaysaa qofka soomaaliga ah wuxuu ku ammaanaya dalka sacuudiga, wuxuu ku ammaanaya imaaraadka iyo sidoo kale dowladaha kale, isagoo kaaga dhigaya inay yihiin dad wanaagsan kugu diin ah. laakiin xaqiiqda ayaa waxay tahay in dadyoogaasi ay yihiin dadka dhibaatada ugu daran dalka soomaaliya gaarsiiya, isla markaana aada ka warqabtaan in dowladaha dariska ah laftigooda ay ka caawiyaan in ay shidaalkii soomaaliya ee badda arrimihii la xiriiray waa tii ogeedeen in dowlado badan oo imaaraadka ka mid yihiin ay ku lug lahaayeen iyo dowladda qatar. taana waxay ka dhigan tahay in dal kasta adduunka haatan jiro uu fiirsanayo dantiisa. dadka soomaaliyeed waxaa arkaysaa in aada loo shirqoolay oo markaasi maskaxdooda la geliyey ama la damiyey, oo aad arkaysa qofka soomaaliya inuusan fikirayn. hal qof oo soomaali ah ayaa hadal dhahaya ama sheegaya, hadalkaasi laisma weydiinayo. nimaa meel ka hadlaya siyaasi ah ama wadaad ah ama aqoon-yahan ah, wax alla wuxuu rabo ayuu sheegayaa, wax been ah ay runa isku daraa, qof weydiinaysa ma lahan. waxaan loo yaqaana social accountability ama in bulshada ama isla xisaabtan bulshada waxa la dhahayo soomaalida ma qabto. qof kasta wuxuu rabo sheegayaa oo xaqiiqda ka fog, waa la dhegeysanayaa. qaar badan iska arkaysa iska raacaya oo aanba isweydiinin waxaasi. markaad isku daydo inaa qofkaasi arrintiisa markaasi muujiso inay qaldan tahay ama uu qalad markaasi sheegayo, intii ay ka hayd inay isweydiiyaan adiga ayaa lagugu soo jeesanayaa oo ceebo badan lagu raadinayaa. xitaa waxaa arkaysaa qof weligiis ku arkin oo aan ku aqoonin oo maanta kugu horeyso inuu ku eedeeyo oo kugu yiraahdo waa qaldan tahay iyo waxaasaa tahay. waxyaabaha kale cajiibka waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano joog faaliga oo ah in waa dhaqan yaab leh oo social media ka jiro, oo qofka bulshooyinka adduunka ama bulsho kasta waxay leedahay akhlaaq iyo sidoo kale waxyaaba ay ilaashto. waxaa arkaysaa qofaa qoraal qoraayo 100 kale aad iska raacayso, kuma yaqaanaan waxaa taa moogid, halka erey qofkaas dhaha ayaa la iska raacayaa. taasi waxay muujinaysaa marka bulshada markay wareersan tahay oo waxaan yidhaha tiida oo reer bani israa'iil lagu rida la sheegi jiray ayaa soomaalida haysto. qofka soomaaliga ah aada u dhibaateysan yahay oo meesha ka imaaday meesha u socda ma yaqaano, wixii qaldan ama wixii markaasi isaga cadow ku hana iyo wixii kala ma kala fahamsano. waxyaabaha kale cajiibka waxaa ka mid ah qofka soomaaliga ah inuu qabo waxaan loo yaqaano Stockholm syndrome oo ah kan kuu roon ama qof kuu wanaagsan ama shay kuu wanaagsan ayaa nacaysaa, markaas waxaad jeclaanaysaa shayga kuu xumaa ama cadowgaada. waana wax bilcagsi ah oo bulshooyinka wareera adduunka ay la kulmaan. soomaaliya markaad dhegeysato ee odayaasha hadlayaan, aqoon-yahanada kuwa sheegana hadlayaan, waxay ku leeyihin dad wanaagsan nahay, sidaasaan nahay. haddii aanaan dad wanaagsan, maxaa sababay in dalka soomaaliya dagaalo sokeeya uu ku jiro muddo sanado ah ama nus qarni oo kusii socoto? waxyaaba kale la isweydiinaya waxaa ka mid ah soomaaliya ma leedahay hal qof ama hal shaqsi oo wanaagsan, kaas oo ah mid markaasi la isku haleyn karo, lagu kalsoon yahay hadalkiisa. waa dal dhan oo 20 milyan dad gaaray markaasi ku nool yihiin, ama dadka Soomaaliya waa 20 milyan. hal qof oo Soomaali ah nama jiro oo la aamini karo warkiisa, la rumaysan karo ama ka madax banaan dhiiqada markaas qabiilka ama dhiiqada daneysiga.
soomaalida marka waxaa haysto dhibaatooyin fara badan, waxaa hoggaan u noqda kuwa ugu liita. buug waxaa jira wake up lahayo oo nin borkhis la qoray. buuggaasi markaas si u akhriso waxaa u maleysaa buuggaas waxaa la qoray ku dhawaad 100 sano ka hor, waa sanadihii 40 meel soo qoray. haddana markaa fiiriso wuxuu si toos uga hadlaya xaaladda Soomaaliya. waa tii heestii Soomaaliya tooso. wake up waa sidaas oo kale, waa inaad toostaan. Soomaalida waxaa kula dardaarmaya inay toosaan isla markaana is weydiiyaan waxa ka qaldan. haddaba waxaa barnaamij kusoo gabagabeynayaa Soomaaliya bulsho noocee ah ayay u baahan tahay. daawade fikirkaada iyo wixii tala ah hoos markaas noogu soo qor. sidoo kale channelkan kaaha bulshada subscribe saar, rukumo si aad barnaamijyo soo socdo ee soo aadan aad nala socoto. mahadsanidin.